wiilka aabihiis bilyaneerka ah laakiin shaqadiisu ay tahay jeebaarashada gabdhaha iyo inuu si khiyaano ah gabdhahaas lacaga badan ooga dhaco. wuxuu ku safraa diyaarado qaali ah oo asaga leeyahay, wuxuu wataa gaariga ka qaalisan, wuxuuna ka adeegtaa oo uu ka labistaa kambaniyada waaweyn sida shirkadda dharka qaaliga ah iibisa ee Gucci. laakiin waxaasoo dhan lacag asaga uu shaqaystay ama uu leeyahay ogama baxdo ee waa lacag uu ka soo dhacay gabdho uu xiriir been ah la sameeyay. We have no idea what he's capable of. It's just been fucking hell. I'm just freaking out. But we needed to get payback. kuwani waa gabdhihii uu sida khiyaanada ah lacagaha uga qaatay. $20,000, $30,000, $140,000. I hate him. It's so horrible. waa kuma ninkan lagu magacaabo Simon ee Yahuudiga ah ee sheegtay inuu aabihii bilyaneerka yahay, lagana mamnuucay dhammaan applicationada shukaansiga ah sida Tinder. Netflix ayaa ka sameysay film documentary ah oo la magac baxay Tinder Swindler, filimkaas oo ku jiro filimaanta ugu daawashada badan ee Netflix. The man I loved was never real. magacayga waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeena waxaan kaga hadlaynaa nin si khiyaano ah gabdho xiriir been oo la sameeyay kana dhacay lacag aad u badan. qisada ninkan lagu magacaabo Simon shirkadda Netflix ayaa ka sameysay film documentary ah. haddaba ninkan sidoo gabdhahaas u dhacay oogana sameeyay lacag lagu qiyaasay $10 milyan. applicationka caanka ah ee la isku shukaansada ee loo yaqaan Tinder ayuuna ka bilaabay inuu ka sameeyo lacag aad u badan, meeshaasna uu dabin ugu dhigto gabdhaha singalka ah ee raadinayo nin ay nolosha la qaybsadaan. Simon dabinkiisa waxaa ku soo dhacday gabadhan oo joogta London, UK, laakiin gabadhan ma ahan gabadhii ugu horeysay oo u dhacay, kuwa kaloo badan ayuu hore u soo dhacay, laakiin gabadhan waxa ay ka mid tahay oo ka soo muuqatay filimka ay sameysay Netflix. qisadeeda ayay la wadaagtay iyo qaabkii uu u dhacay ninkan. waxay tiri anoo applicationka isticmaalaya waxa iga soo horbaxay sawirkiisa, like ayay siisay, asagana hore like ayuu u siiyey, meeshaasna isku maajgareeyeen. kadib waxay sii booqatay Instagramkiisa, meeshaasna waxa ay ka heshay sawirada Simon asagoo wata gaariyaal qaali ah kuna dhex jiro diyaarado qaali ah. sawiradiisa ayay ka heshay oo soo jiitay, waxayna iska dhaadhacsiisay oo aamintay ninkan inuu yahay nin taajir ah oo lacag haysto. You can see that he lives a very different life than what I'm living. He had some selfies, a picture in a nice car. You could see that it was a private jet. Just an overall asagana qorshihiisa ayaaba sidaas ahaa in gabdhaha uu ku soo jiito sawirada Instagramka ugu jiro. isla markiiba uu la soo hadlay, waxayna kala qaateen lambarka WhatsAppka. wuxuuna Simon gabadhii ka codsaday inay kulmaan oo ay waqti wada qaataan. waxa uuna ku ballamiyay hoteelada waaweyn ee qaaliga ah mid ka mid ah, meel aysan weligeed tegin ayay kula kulantay ninkaas. cunto qaali ah ayay cuntay, waa ay kala badbadatay, wuxuuna u soo bandhigtay oo ka codsaday inuu xiriir la sameeyo, ayadana isla markiiba ay ka aqbashay. maalin kadib ayuu la soo hadlay, wuxuuna u sheegay inuu u kaxeynayo safar dibadda ah oo dalxiis ah. safar dibadda ah ayuu u kaxeeyay, meeshaas ayay waqti kusoo wada qaateen. wuxuu ugu sheekeeyay inuu yahay ganacsado ka ganacsada diamondka, aabihiina inuu yahay bilyaneer. gabadhii waa ay kala badbadatay iyadoo aad u faraxsan oo istiri noloshaada hadda ay iskugu aaday, waxaad heshay nin lacag leh. subaxdii markii hurdada ka soo kacdana wuxuu u soo qori jiray maaseejo galgaceel ah, wuxuuna u soo duubi jiray codod asagoo dhahayo xabiibti see ku soo kacday, oo gabadhan guud ahaan qalbigeeda ayuu kasbaday. I will support you, I will help you, and we will lift each other. You're nice, you're cute, you're sweet. You let me to do what I need to do, and I really appreciate. waxay sidoo kale sheegtay in subax uu la soo hadlay una sheegay inuu diyaar u yahay inuu guursado, laakiin uu u baxay safar dibadda ah oo ganacsi ah. wuxuuna u sii sheegay inay sii raadiso guri aad u weyn, gurigaas oo labadooda ay wada degi doonaan, aakhirkana gurigaas uu ayada u gadi doono. waxay sheegtay inay ku mashquushay raaditaanka guryo aad u waaweyn oo qaali ah, maadaama ay aamintay in saaxiibkeed uu lacag leeyahay oo wax walba uu awoodo inuu u gado. iyadoo mashquulsan ayaa waxaa u soo dhacay maaseejo si joogto ah iskaga soo daba dhacayay. waa ay furtay, kadib waa ay naxday, waxayna aragtay saaxiibkeedoo dhiigayo. wuxuu u soo diray sawirada bodycardkiisoo dhiigayo iyo isagoo dhaawac ah oo isbitaal joogo. daqiiqado yar kadib ayuu cod u soo duubay, wuxuuna u sheegay inuu dhaawac yahay, sidoo kale bodycardkiisana la dhaawacay, haddana uu isbitaalka jiifo. wuxuuna ku yiri waxay raadsanaysaa koox tuuga ah oo rabta inay idisho, maadaama aan diamondka ka ganacsado, ganacsigeyga iyo dhaqaalahayga ayaa dagaal lagu soo qaaday, ee hadhow ayaan kula soo hadli doonaa. sidaas ayuuna u sheegay. haddana waqti yar kadib ayuu cod u soo duubay, wuxuuna u sheegay inuusan isticmaali karin banki kaadhkiisa maadaama la raadsanayo. wuxuuna u sheegay inuu u baahan yahay lacag degdeg ah oo uu ku bixiyo isbitaalaadka iyo meesha uu seexanayo iyo safarkiisa.
wuxuuna ka codsaday inay usoo dirto lacag 20,000 oo dollar ah oo deen ah oo hadhow uu siin doono. isla markiiba gabadhan lacagta ayay raadisay wayna u dirtay maadaama ay saaxiibkeed ku hubto inuu lacag haysto oo uu taajir yahay. maalin kadib ayuu la soo hadlay wuxuuna u sheegay inuu si degdeg ah ugu baahan yahay lacag 100,000 oo dollar ah. gabadhan waxay u sheegtay in lacagtaas aysan heenin, laakiin wuxuu ku yiri bangiga aad kaarkaaga deen ay u soo qaad maadaama aniga aanan isticmaali karin kaadkayga. deen ayayna u soo qaatay lacagtina waa u dirtay. isla waqtigaas uu lacagta ka qaadayna waxa uu shukaaminaya oo ku mashquulsan yahay qoftan oo ka soo qabtay application-ka Tinder. sidoo kale qoftan wuxuu ku shukaansanayaa aabahay ayaa bilyaneer ah, anigana waxaan ka ganacsadaa diamond-ka, wuxuuna u dirayaa muuqaalo asagoo joogo meelo qaali ah. gabadhii uu lacagta ka qaadayna wuxuu u sheegay inuu siin doono asbuuca soo socda 500,000 oo dollar. gabadhan sidaas ayuu ku dhacay, waa uu ka gaabsaday. haddana waxa uu ku mashquulay uu aaday qofti kale uu ka soo qabtay Tinder. qoftan kale ayada xoogaha waa qof iska ladan lacag haysato. maalmo markuu qoftan shukaamiye oo ka waalay wuxuu u soo diray muuqaaladii dhaawac ah asaga iyo bodyguard-kiisa sida gabadhii hore kale uu ugu soo diray, wuxuuna u sheegay inuu dhaawac yahay oo la raadsanayo oo haddana u baahan yahay lacag deen ah oo hadhow uu siin doono. waxay sheegtay gabadhan lacag ay aruurinaysay oo ay rabtay inay wax ku gadato inay lacagtii u dirtay. markii lacagtii uu ka helay ayadana sidoo kale waa uu ka gaabsaday, shib ayuu ka dhahay, wuxuuna kusii mashquulay raadinta qof kale oo lacag ka dhaco. ninkan caqligiisa lacagaha uu gabdhahaas ka soo qaaday asaga ayaa isku qarash garaynayo, gaariyaal qaali ah, diyaarado qaali ah ayuu ku gadanayaa. hadhowna gabar cusub ayaa arkaysa waxyaabahaas qaaliga ah, waxayna iska dhaadhacsiinaysaa in ninkan uu lacag haysto. ugu dambeyntii ninkan sheekadiisa waxaa banaanka soo dhigtay oo soo afjeertay gabadhii hore oo lacagta ka qaadanayay. sheekadiisana waxa ay la wadaagtay koox journalistayaal ah, waxayna u sheegtay qaababkii uu ku dhacay oo lacagaha uu uga qaatay. kooxdii ayaa ninkan daba kacday oo baaritaan ku sameeyey ilaa sheekadiisii ay la wadaageen booliska, wuxuuna noqday wanted oo booliska ayaa raadsanayay, laakiin wuxuu ku dhumaaleysanayay wadamada Yurub. newska ayaa lagu daabacay warbixintiisa iyo qaabka uu gabdhaha ku dhaco, laakiin midda la yaabka leh gabar uu markaas ku akhrinaya oo uu shukaansanaya ayaa aragtay sawirkiisa oo la leeyahay iska ilaaliya ninkan gabdhaha ayuu dhacaa. isla markiiba way naxday, asaga ayaa wacday, wuxuuna u sheegay waxyaabaha inay been yihiin oo dad ganacsi kala dhaxeeya waxyaabahaas ay sameynayaan. ugu dambeyntiina Simon waxaa lagu qabtay airport-ka asagoo kasii safrayo watana baasaboor bug ah oo been ah. laakiin midda la yaabka leh bilo keliya ayuu xirnaa, isla markiiba waa la soo daayay. haddana waa nin lacag haysto 10 milyan oo dollar ayaa lacagihiisa lagu qiyaasay. gabdhihii uu dhacayna hadda waxay la dhibaataysan yihiin bixinta deemihii ay galeen waagaas. Simon wuxuu sheegtaa inuu yahay hadda nin ganacsado ah oo ka ganacsado real estate-ka iyo bitcoin-ka, wuuna inkiray inuu dhacay gabdhahaas oo lacagahaas oo dhan uu ka sameeyey gabdhaha uu xiriirka beenta la sameeyey. I feel bad for whatever happened to myself. I want to clear my name. I want to say to the world, this is not true. How do you fund your lavish lifestyle? I'm a legit businessman. You know, I bought Bitcoin in 2011, which was nothing. I don't need to say how much it's worth now. muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow, muuqaalka like saar si dad badan u sii gaaro. waqtigaagana waad ku mahadsan tahay. Because I hate myself for I just hate that I did this, you know?